kooxdii argagixisada ahayd ee juntaaga ee TPLF waa laga adkaaday si fiican baa loo garaacay waxay ahaayeen koox runtii hadda koor waxyaalo u fofuqay ku imaan beeshay oo u arkaysay hantidii iyo boobkii ay ku haysay shucuubta kale ee Ethiopia inay mar kale ku qaban karto kooxdaasi ma miirsanayso ilaa tabartu u run sheegto sababtoo ah iyadoo minority yar oo macna lahayna ayay gaadhay heer ilaa iyo dalalka jaarka iyo geeska Afrika oo dhan ay guumaysato oo ay ka taajirto oo xoolahooda qaadato marka way adkaanaysaa in la yiraahdo deegaankiina haydan deeqo waxay maanta arintaas iimaan darrada ah ay ku keeneen kumaan kun boqolaal kun ciidan gaadhay oo dhalinyaro gaadhayso oo u dhalatay gobolka Tigray inay dab ku shubaan taas marka mid ay joojinayaan ma aha isku dayadooda iyaga iyo hadda ay heleen ba waliba kuwo barigantaalaya oo u arkay inay u adeegsan karaan dana kale marka waxa la idinka rabaa inaad ka feejignaataan propagandada ay fidinayaan cadawga taageersan juntaaga kuwa Soomaaliya oo taageersan way jiraan oo isugu jira kuwii shalay markii dadka la dhibaateynay hoggaanka u hayay ee ka faa'iiday dhiigga dadka ama ganacsiga kaga faa'iido ama mansab siyaasadeed kaga faa'iido ama propaganda kale uu ka shaqeyn jiray kaga faa'iido kuwii xoogagii noocaas ahaa oo intooda badan deegaanka dibadda jooga way jiraan waxa ka qorb magac la soo baxaya waxa kale oo jira iyaguna kuwaas ay jahwareerinayaan oo mararka qaarkood qaabo kala duwan ay u isticmaalayaan oo ay u tusayaan in nidaamka TPLF inuu soo laabanayo marka xoogaga propagandkooda faraha badan inaad ka taxadartaan inaad awaamirta ciidamadiina iyo aqoonta leedila wadaagayo qaadataan ku hawlgashaan aad noqotaan ciidan sumcad u soo hooya deegaankiisa la idinka rabaa xukuumaddu waxay ballan qaadaysaa inay si weyn uga shaqeyso daryeelkiina inay ka shaqeyso hadda koor aad ogtiin gaadiidka ciidanku haystay waa la soo kordhiyay toddobaadkan waxayna soo gaarayaan u maleynayaa ugu yaraan 30 gaari oo kuwii waaweynaa ee xamuulka oo casri ah oo ka duwan kuwii hore waan sii xoojinaynaa tayeynta iyo qalabaynta ciidanka gawaari kale oo fara badan bay saraakiishu u baahan yihiin daryeel dheeraad ay u baahan yihiin guryo u baahan yihiin hadda koorna waan ballan qaadnay ilaa tabartanada haddii aan la yidhaah inaan xoojino naga go'an tahay waxaanu rabno inaan uga tagno mas-uuliyiinta ama xukuumadda dambeena bedeli doonta waa ciidan xasiloon oo darajooyin muxuu ahaayey iyo sharaf ku leh shacabka dhexdiisa oo noloshiisu ay ka muuqato inay yihiin ciidan quman waxyaalahan ku hamiyeen taasa ugu horeysa insha Allah waan gaari doonaa idinkana waxaa la idinka rabaa moraalka inaad ku shaqeysaan xaaladda dalku way iska adag tahay marka waxaa laga yaabaa in abaaraha iyo duruufaha aan darisnay awgeed ballanqaadiyada qaarkood ay u soo daahaan dabad adeeg iyo samir ayaa la idinka sugayaa mar kale waxaan idin leeyahay dhammaantiin hambaliyo waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu